kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka raadraaca telefishinka qaranka Soomaaliyeed caawana barnaamijka waxaan intiisa badan ku eegi doonaa diiradda ku saareynaa shirkii maanta ka furmay magaalada Muqdisho ee shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka kaasoo goorsii horeysay Osaka uu daahfuray ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya khudbadiyalkaasi laga jeediyay iyo waxyaabaha Soomaaliya halka ay ku soo bandhigtay iyo sida xubnaha ka socda dhanka caalamka ay uga hadleen horumarka iyo howlaha horyaala dowladda federaalka Soomaaliya ayaanu eegi doonaa waxa kale oo barnaamijka qayb ka ah Soomaaliya iyo Talyaaniga oo isla madashaasi heshiis ku kala saxiixday heshiiskaas oo ku saabsan dhismaha wadooyinka Soomaaliya qaarkood waanu eegi doonaa wasaaradda howlaha guud oo arinta faahfaahinaysa waxa kale oo aanu gaar u eegi doonaa caawa qayb kale oo kamid ah shirkaasi madasha iskaashiga Soomaaliya caalamka oo uu gudoomiyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre iyo waxyaabihii looga hadlay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo ka hadlaya xaalado ka jira deegaanada Koonfur Galbeedna waan idin soo gudbin doonaa oo shirkii caawa ka hadlayay faaqidaad ayaanu ku sameynaynaa shirkaasi muhiimadda uu lahaa iyo sida ka soo qaybgalayaashu ay uga hadleen arrimaha kala duwan ee shirka iyo xaaladda Soomaaliya ku xeendaaban daawadayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijkeena raadraaca وهاجاك داود البرنامج كنا رادراع وحنو كوبيلابي نار رئيس الوزراء كحجان كحكومة فدرال كصوماليا مهدي محمد جولد يا جورسيو رئيس أوساكا دافوري شركة مدرسة إسكاشية صوماليا يا عالم كومركي وجوه رئيسي لجو قبطي مجال مقدشو شركة كيكورينا بروسلس أيا لجو قبطي شركة وحصانية مدلة مع الموضوع وحلقها اللي يعرمها كمديهين سياسة دقالها يعرمها بالشدة وحنا كقيب جليا وكيلو كلا سعودين كبدن كنتم ضل سفير شركة عالمي oo shirkan lagu cazumay hadaba ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed ayaa khudbadii halka ka jeeday waxa uu kaga hadlay waxyaabaha ugu muhiimsan ee dowladda federaalka Soomaaliya ku guuleysatay iyo waxa ay hadda hiigsanayso Soomaaliya meel fiican bay maanta maraysaa dhinacyada amniga oo si weyn looga shaqeynayo dib habeynta amniga ciidamada si xooggan loo jabiyay cadawga nabadiidka meel fiican ay ciidamada qaranka Soomaaliya iyo walaalaha AMISOM oo nala shaqeeyaba ay marinayaan inay daciifiyaan al-shabaab iyo nabadiidka sidoo kale waxa shaqo fiican ka socotaa wax badan laga qabtay arrimaha dhaqaalaha dawaadeynta dhaqaalaha iyo SNB oo World Bank IMF aanu kala shaqeyno iyo in shuruuc wax ku ool ah la diyaariyo maadaama anagu dawladdan markii la dhisay aan xooga saarnay arrimaha shuruucda iyo siyaasadaha shuruucda xukuumaysa maaliyadda oo kuwa ugu muhiimsanaa qaarkood madaxweynuhu saxeexay sida isgaarsiinta iyo sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa waxa kale oo madaxweynuhu saxeexay sharciga naafada marka dhinaca dhaqaalaha dib habeyntiisa iyo in mushaharooyinku bil kasta u soo dhacaan ciidamada iyo shaqaalaha dawladda adeeg kasta oo la qabtaana uu si sharciya uga baxo wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha xisaabaadka ku shaqada leh systemkaasi si fiican uu u shaqeynayaa idinkuna marxaatiba ka tihiin ummadda Soomaaliyeedna marxaatiba ka tahay waa horumar weyn oo aan dhinaca dhaqaalaha ka sameeyno waxa kale oo iyadana si weyn looga shaqeeyay siyaasadda loo dhan yahay oo si fiican u taabagashay shuruucdii dib-u-habeynta dastuurka oo 15kii chapter farsamo ahaan dhameystiran yihiin sharcigii doorashooyinka oo meel fiican maraya golaha wasiirada ansixiyay hor yaala golaha shacabka oo ka doodaya hadda marka ay maka furmaana la hor keeni doono si Soomaaliya 50 sanadood kadib ay uga hirgasho doorasho xor ah oo xalaal ah hal qof iyo hal cod ku dhisan si xor ahna shacabweynaha Soomaaliyeed toos ay u soo dooranayaan wakiiladooda baarlamaanka iyo madaxweynahooda marka taana sharciga iyo baarlamaanka oo hortaala inuu meel fiican mariyo lana ansixiyo waxa kale oo wax weyn aan ka qabanay arrimaha bulshada dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka iyo gurmadka gargaarka degdega xuquuqul insaanka oo wax weyn ay Soomaaliya record fiican maanta marayso si fiican taabagal iyo dabagal loogu sameeyay gudida xuquuqul insaankuna xulisteedii ay meel wanaagsan marayso Soomaaliya waxay la bariisantay
dikhawga cimilada isbeddelka cimilada adduunka oo dhibaato culus ku haya deegaanka dhibaato culus ku haya xoolaha xaalufinta dhirta oo loo bedelo dhuxul lana dhoofiyo oo laga ganacsanayo isaguna dib weyn ku haya deegaankii iyo abaaraha soo noqnoqda oo ay sabab u tahay isbeddelka cimilada adduunka barakicinaya dadkii markasta uu roobdo daadad fataha oo xaalufiya dalagii baabiiya deegaankii iyo marka abaaruhu dhacaan oo mar labaad xoolihii iyo dadkiiba dhibaato weyn u haysta Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada ugu nugul isbeddelka cimilada adduunka waxaan isleeyahay shirkani wax badan ayaa uu kaga hadli doonaa aynuna ka qaban doonaa sidee baan fikir iyo ra'yi isugu biirinaa in adkaysiga iyo dib u soo nooleynta deegaanka Soomaaliya oo 30 sanadood u dambeeyay dhibaato baan lagu hayay dib looga shaqeeyo dhiraynta bilicda deegaanka wanaajinta deegaanka la dagaalanka waxa xaalufiya ama badda ha noqoto ama dhulka ha noqoto deegaanka intaasiba waxay tahay waxyaabaha aynu isleenahay waa kaga hadli doontaan shirkeenan maanta iyo berri socon doona ajanda dheer baynu leenahay waa maanta waa maalinta ugu hawlaha ugu waaweyn dhacayaan waxaan isleeyahay waqtiga si fiican baydun uga faa'iideysan doontaan qof walbana waxa uu ku koobnaan doonaa mawduuca wixii aan laga tagayna in uu ka hadlo arinta kale ee aan doonayo inaan taabto waxa weeye iskaashiga labada dhinac oo afka qalaadna aynu ku nidhaa partnership principles inaynu kaga hadalno iyo maaf oo isaguna ah maxaa isla xisaabtanka labada dhinac mid walba u yaal laga rabaa dawladda Soomaaliya 15 bilood ilaa 2020 December maxaa noo qorshaysan ay tahay inaanu qabanno dhameystirnana beesha caalamku 15 bilood u haray mandate-ka xukuumaddan dawladdan maxay wax nagala qaban karaan iyo aakhirkii inaynu ka heshiino warmurtiyeedka ka soo baxaya fadhigeena maanta iyo berrito waa mahadsantihiin kaasina waxa uu ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka hadlay furitaanka shirka madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka shirkaasi intii uu socday waxa si gaar ah heshiis u kala saxiixday safiirka Talyaaniga oo fadhiya Soomaaliya oo matalay dawladda Talyaaniga iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud oo matalay dhanka dawladda federaalka Soomaaliya heshiiskaasi wuxuu ku saabsan yahay dhismaha wadooyinka haddaba wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska guriyada xukuumadda Soomaaliya Jamaal Xasan Ismaaciil ayaa muhiimadda heshiiskaasi inoo faahfaahiyay aynu anaga ambassadorka Italian Corporation Ambassador Carlo iyo wakiilka ka socda African Development Bank Hussein Yusuf Iman runtii farxad weyn bay ii tahay inaan maanta halkan dawladda Italy ambassadorkeeda Carlo oo halkan aan ku signature gareyno ama ku saxeexayno lacagta loogu talagalay contributionka wadooyinka runtii wadooyinka waxay wax weyn ka tariyeen wadooyinku waxay wax weyn ka tarayaan shacabka waxay lacagtan wax ka taraysaa wadooyinka garanaysaa wixii shacabka ay saameyn ka soo gaarto hawlaha dayactirka wadooyinka isku xira gobolada dalka iyo dalalka aan dariska nahay runtii farxad weyn bayna gelinaysaa waanan runtiina maaha imiko kaliya dawladda Talyaaniga oo ay ku deeqday Soomaaliya ugu deeqday lacag waa markii saddexaad mise markii afraad ayaan u maleynayaa oo Italian Corporation ay Soomaaliya ugu deeqayso budget ama lacag loogu talagalay inay ummadda Soomaaliyeed wuxuu ugu tarto ugu qabato runtii aad iyo aad ayay farxad weyn ugu tahay waana ku amaanay Ambassador Carlo iyo dawladda Talyaanigaba sida sharafta leh ay mar walba ay gacanta uga geysanayaan shacbiga Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed intaba ay uga geysanayaan kaalmada magaranaysaa walaalnimada iszaannimada runtii aad bay farxad gelinaysaa waana soo dhaweynayaa dawladda Talyaaniga waxa kale oo aan mahad ka iyaduna la mid ah aan soo jeedinayaa bangiga horumarinta African Development Bank oo runtii wax weyn ummadda Soomaaliyeed taariikhdeeda ama historygeeda gali doona oo ay ku sameeyeen sida ay ula shaqeynayaan wasaaradda howlaha guud dib u dhiska iyo guriyeynta
oo runtii haddaan shaqadaasi aanan isla jaan qaadin annaga iyo bangiga horumarinta Afrika ay runtii ay ahaan lahaydeen wax ma garanaysaa ay iska meel soka laakiin maanta waxa farxad weyn noo ah in dad badan oo Soomaali ah oo wadooyinkaas dayactirka lagu sameynayo dhibkii ka soo gaadha runtii saameynta ay ku yeelato lacagtan in lagu bixin doono oo lagu hagaajin doono iyadoo procedure-ka iyo nidaamka qaanuuniga ah ee African Development Bank iyo qaanuunka dawladda Soomaaliya ay u dhigatay la marayo insha Allah bidmillaahi kariim runtii waxa kale oo yiraahdo ma arin dawladda Talyaaniga Italian Corporation iyo Mastercard kaasina waxa uu wasiir ku-xigeenka wasaaradda howlaha guud ee dib u dhiska iyo guryeynta xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Jamaal Xasan Ismaaciil oo inaga waramay faahfaahinayeen heshiis dhanka dawladda Talyaaniga uu la saxiixday oo ku saabsanaa dib u dhiska wadooyinka. haddii aanu shirarkii maanta iyo heshiisyadaasi intaasi kaga nimaadno waxaa caawa jiray shir kale oo qayb ka ah madasha iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka kaasoo caawa uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre. shirkaas waxaa looga hadlayay arrimaha ku saabsan kheyraadka biyaha iyo ka faa'iideysigooda iyo sidii maalgelin loogu heli lahaa kheyraadka biyaha. dhinacyada shirkaasi ka qaybgalaya ayaa u ballan qaaday Soomaaliya inay ka taageerayaan ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha iyo sidii maalgelin loogu heli lahaa. dhanka dawladda federaalka waxay soo bandhigtay qorshaha arrintaasi uga aadan. ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo shirkaasi arrimaha kheyraadka biyaha looga hadlayay ka qudbeeyay waxa uu yiri maalgelinta kheyraadka biyaha waxa ay qayb ka tahay kobcinta dhaqaalaha iyo sare u qaadida xasiloonida iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaalaha iyo hay'adaha dawladda. haddaba dadkii shirka caawa ka hadlay waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Laftagareen oo deegaanada uu madaxda ka yahay ka mid yihiin meelaha ugu daran dhibaatooyinka dhinaca biyaha ah ay ka jiraan una baahan in horumarin lagu sameeyo ka faa'iideysiga kheyraadka biyaha iyo maalgashigooda. madaxweyne Laftagareen mar uu shirka ka hadlayay oo warbixin ka siinay ka qaybgalayaasha shirka arrimaha ku saabsan xaaladda biyaha ee waa Koonfur Galbeed waxa uu yiri السلام عليكم anigiyo madaxweyne waare waxaan inta u nimid shirkii annaga berri buu ahaa laakiin prime ministerkan uga mahad celinaynaa waxaa muhiimadda ay noo leedahay ajandahan laga hadlayo oo biyaha darteed yaan u nimaanay deegaanadii aan ka nimid dhibaatada biyo oo ka jirta Soomaaliya dhibaatada ay qabto waxaa waaye biyo la'aantana dhibay ku tahay biyaha markay imaadaana dhibay ku tahay markii biyo la'aanta ay jirto biyo la'aan baa loo dhammaanayaa markay biyo yimaadaan oo roobabka ay yimaadaan iyo webiyadana daadadkaa dadka dhammeeya marka waa laba dhibaato biyo la'aanna ma fiicno biyana ma fiicno intaba waxay u baahan tahay xal dawladeed inay helaan waxyaalaha ugu daran oo hadda gobolada aan ka nimid gaar ahaan Koonfur Galbeed saameeyay bilaanta xoolihii iyo beerihii iyo wax soo saarkii waxa ka daran bini'aadankii baa biyo cabaan la magaalooyinka gobolka Baay iyo Bakool degmada Buurhakab hal eel oo biyo ay ka cabaan mare hadduusan roob imaanin dadkaas 40 kiiloomitir oo isku weera oo bay u dhamaanayaan magaalada Baydhabo 900 kun oo qof joogto laba ceel baa ka shaqeyso markii xilliga aan kala la gaaro biyo la'aanta bilaabat dadka deegaanadaas degan waxay ku nool yihiin wax soo saar iyo beerahaas waxay u baahan yihiin roob sida la socotaan muddadan dambe roobka aad u yaraa marka in wax la soo saaro iska dhaafay ma la awoodi karo in haataa biyo la cabo xoolaha iyo bini'aadanka bay helaan waxaa loo baahan yahay in la gaarsiiyo dadka si wax soo saarka loo dhiirigeliyo meel kasta oo dhul beereed ah in laga helo ceelal biyo oo wax soo saarkii lagu sameeyo marka biyaha waa nolosha muhiimadeeda bini'aadanka ay ka bilaabato ama security ha noqoto ama nolol ha noqoto ama wax soo saar ha noqoto waxa ugu horeeya oo muhiimka noo ah waa biyaha weey waxaana keenay caawa muhiimadda ay leedahayna biyaha laga hadlayo weeyo inaan annagana message-ka annaga aan dinin dadaallo badan ayaa la suubiyey oo ay suubiyeen dowladda federaalka UNICEF
African Development Bank oo waday qorshe ah biyo-gelin loogu samaynayo degmada Baydhabo IOM oo shaqo fiican ka waday Save the Children oo ceelka ugu dambeysay sameysay dadaaladii tirada badnaa oo internationalka ay ku caawinayeen dadkan oo biyaha loogu samaynayo ayagana waa ku mahadsan yihiin laakiin waxaa muuqato inaysan ku filnayn biyo la'aanta iyo duruufaha deegaanadaas ka jiran ay zaid si marka waxaas oo dhan looga hortago waxaan la diyaarinay oo dawladda federaalka aan ka wada diyaarinay qorshihii loogu samayn lahaa siyaasadii biyaha tii baan rabnaa marka in laga wada shaqeeyo annaga iyo dawladda federaalka haddii ilaahay yidhaah waxa uu ahaa madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan lafta gareen oo caawa ka hadlayay shirkii ra-iisul wasaare khayre uu gudoominaya looga hadlayay arrimaha kheyraadka biyaha iyo ka faa'iidaysigooda wuxuuna ka warbixinaya xaaladda koonfur galbeed ee dhinaca arrimaha biyaha iyo dhibaatooyinka ka haysta waxaa kaloo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka uu si gaara kulan ula qaatay erge ka socda dalalka Masar iyo Kenya iyo bangiga adduunka iyo ururka iskaashiga islaamka ee OIC magaciisa loo soo yareeyo waxaana ay ergadu bogaadiyeen oo dhiirigeliyeen horumarka iyo guulaha ay gaartay dowladda federaalka Soomaaliya iyo isbeddelka ka muuqanaya magaalada Muqdisho dhinaca kale ra-iisul wasaaruhuna waxa uu ergadaasi uga mahadceliyay ka soo qaybgalkooda shirkan muhiimka ah ee Soomaaliya hadda markii ugu horeysay lagu qabtay haddaba intaasi markaanu khudbadaha mas'uuliyiinta kaga nimaadno waxaa toos qadka telefoonka ugu jira wariyahana Cabdullaahi Amiin Qorshe oo ka mid ahaa tiimka ka socday telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee ilaha saaka idin soo tabinayay sida tooskan idinku soo gudbinayay shirkaasi ka socday magaalada Muqdisho oo goor dambe caaw ahna soo gaaray Cabdullaahi haddaadna maqlayso bal waxaad warbixin naga siisaa khudbadii mas'uuliyiinta intooda badan waxaanu soo qaadanay inaad sawir guud dadweynaha ka siiso hoolka shirka maanta sida uu ahaa iyo hay-adaha dawladda ee kala duwan ee shirka joogay inaad xusto badan waa mahadsantahay Cumar Xasan Cali adiga iyo daawadasha TV shirka oo waxa uu furay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya oo isagana shir gudoominayay dabcan waxaana maaragta ka qayb galay ku dhawaad wakiilo ka socday konton dal ilaa iyo sidoo kale waxaa jiray shirkado kasoo qayb galay maaragta shirkan waxaa kaloo jiray urur caalami ah oo shirka ayaguna goobjoog ka ah oo wakiilo ka socday sida midowda Afrika ururka iskaashiga islaamka ururka jaamacadda carabta iyo maaragta bangiga adduunka iyo sidoo kale bangiga horumarinta Afrika dabcanna waxaa looga hadlayay maaragta ilaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid yihiin maaragta dib u habeynta dhaqaalaha amniga iyo cadaaladda horumarinta qorshaha qaranka iyo sidoo kale horumarinta arrimaha bulshada iyo siyaasadda loo dhan yahay dabcan dhinacyada maaragta kulankaasi ka hadlay waxay aada u bogaadiyeen dadaalada dowladda Soomaaliya ay ka samaysay dhinacyadaasi ra-iisul wasaaraha ku-xigeenka dalka oo shirka furay khudbadu ku jeediyey dabcan wuxuu ka hadlay ballamihii maaragta dowladda federaalka Soomaaliya ay qaaday ee ku guuleysatay marka la eego qodobada looga doodayo kale sidoo kale wakiilka midowda Afrika oo asna khudbad ka jeediyey wuxuu aada u bogaadiyey dadaalada ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qaranka Soomaaliya guud ahaan ay ka sameeyeen horumarada dagaalada lagula jiro kooxaha argagixisada iyo maaragta deegaanada ay la wareegeen muddooyinkii ugu dambeysay iyo sida maaragta loogu guuleysanayo qorshaha diiwaangelinta ciidamada qaranka sidoo kale waxaa asna khudbad ka jeediyey wakiilka qaramada midoobay ee maaragta arrimaha Soomaaliya James Wan oo wuxuu aada u bogaadiyey dadaalada dowladda Soomaaliya maaragta ka samaysay sidoo kale arrimihii siyaasadda iyo maaragta dib u hanashada dib u heshiisiinta iyo arrimaha la midka ah marka dabcan shirku wuxuu ahaa shir maaragta muhiimadiisa leh oo aada maaragta loo qorsheeyey wakiilada beesha caalamka shirka ka hadla ayaguna sidoo kale waxay aada u bogaadiyeen dowladda federaalka Soomaaliya in maaragta ay samaysay horumaro la taaban karo muddooyinkii ugu dambeeyey Cabdillaahi dabcan waxaa jirtay in dhowr wasaaradood ay halkaas ka soo jeediyeen wasiiradoodu khudbado ay kaga hadlayeen waxyaabo la xiriira mawaadiicdii maanta shirka looga hadlayay marka arrintaa haddaanu eegno maxaa laga xusi karaa waxyaabaha wasaaradahaas ay ka hadleen kuways ahaayeen wasaaradaha maanta
halkaa wax ka soo jeediyo. waa mahadsantahay dabcan wasiiro dhowra ayaa maaragta looga maaragta ka hadlay shirka oo arrimo kusiiyey maaragta shirka looga hadlay waxaa kamid ahaa oo soo qaadan karnaa wasaaradda maaliyadda oo kale waxaa halkaas khudbad ka jeediyey wasiirka maaliyadda cabdiraxmaan ducaale bayle waxa uu maaragta si aada u faahfaahiyey barnaamijka dinacsiinta iyo qorshaha maaragta habeynta maaliyadda guulaha laga gaaray dabcan waxyaabaha la xusay waxaa ku jiray in maaragta ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan diiwaangelintooda iyo bixinta mushaaraadka oo haddii noqoto dhinaca ciidamada iyo dhinaca shaqaalaha maaragta loo maray hanaan maaragta loo kalsoonaan karo oo macnaha muujinaya inuu qayb ka qaadanaya qorshaha dawladda ay ugu talagashay dib u habeynta dhaqaalaha maaragta laguna kalsoonaan karo oo ah maaragta in ay maraan habka ku baxo bangiyada adduunka oo kale bangiyada ay maraan marka waxaa aada loo xusay marka in guulo laga gaaray barnaamijka ganacsinta iyo sidoo kale dhaqaalaha maaragta dib u habeynta dhaqaalaha dalka waxaa sidoo kale asagana maaragta halkaasi ka hadlay wasiirka gaashaandhigga oo asaguna maaragta si aada ugu nuuxsaday guulaha ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada qaranku ay sameynayaan meelihii ugu dambeeyey maaragta la qabtay horumarada laga sameeyey barnaamijyada diiwaangelinta ciidamada iyo arrimo lamid ah isaguna sidoo kale waxaa ka hadlay halkaasi wasaaradda ganacsiga wasaaradda waxaa ka hadashay sidoo kale qorsheynta qaranka oo maaragta iyaduna ka hadashay qorshaha horumarinta qaranka oo toddobaadyo ka hor maaragta ay ansixiyeen golaha wasiirada ay meel mariyeen iyo horumarada laga sameeyey sidoo kale waxaa iyaduna ka hadashay wasaaradda horumarinta xuquuqul insaanka wasaaradda garsoorka iyo wasaarado kale oo maaragta ayaguna quseeyey mawduucyo quseeya looga hadlaya shirka marka dabcan waxyaabaha ay soo bandhigeen waxyaaba aada u taaban karay oo guulo laga sameeyay ayay ahaayeen oo aada loogu riyaaqay oo kasoo qaybgalayaashu maaragtay aada u bogaadiyeen in waxyaaba la taaban karo oo halkaasi laga sameeyey islamarkaana mudan in la dhiirigeliyo waxayna ballan qaadeen wakiilada beesha caalamka in ay lasii shaqeyn doonaan islamarkaana garab istaagi doonaan xukuumadda federaalka soomaaliya iyo guud ahaanba dowladda. cabdullaahi waxaa jirtay shirkii caawa ee ra-iisul wasaaruhu guddoominaya arrimaha biyaha looga hadlay ra-iisul wasaaraha waxyaabihii uu ka hadlay iyo madaxweynaha koonfur galbeed ayaan goor dhowey dadka la wadaagna usoo gudbinay maxaa kale ugu muhiimsanaa oo wakiilada beesha caalamka iyo madaxda kale ee meesha joogay oo soomaalida ah ay ka hadleen? waa mahadsan tahay shirka caawa waxaa maaragta shir guddoominayay wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali kheyre waxaana maaragta looga hadlayay kheyraadka biyaha dabcan muhiimadda ay leedahay maaragta kheyraadka biyaha marka loo fiiriyo dalka sidii bulshada maaragta ku nool dalka ay u heli lahaayeen ama uga faa'iidaysan lahaayeen biyaha dalka in maaragta qorshe loo sameeyo islamarkaana dabcan isbedelka cimilada adduunka oo kale saameynta ay ku yeelatay arrimahaasi iyo weliba marar qaarna waa dareemi kartaa dalku wuxuu udhexeeyaa marar in ay dhacaan duufaano macnaha la xiriira ayraahda abaaro oo saameyn ku yeesha nolosha iyo dadka marar qaarna waxaa dhacaa daadad sababaan roobabka oo maaragta dhibaato geysta marka wax u dhexeeya in la helo laga faa'iidaysto biyaha roobka oo kale markay yimaadaan isla markaana biyaha dhulka hoostooda ku jiro oo kale lasoo saaro dadkuna ay biyo nadiif helaan si wada jir looga faa'iidaysto marka dabcan wakiilada beesha caalamka oo kale ayaguna meesha ka hadlay waxay xuseen maaragta arrimahaas ay garab ku siin doonaan dowladda islamarkaana dadaal xoogan la gelin doono si wada jira iyadoo loo wada shaqeynayo in maaragta kheyraadka biyaha looga faa'iideeyo bulshada. cabdullaahi qorshe waxaa kaloo rabaa inaan ku weydiiyo maadaama ajandaha iyo howlaha shirkan aada ula socoto maalinta beriya ayuu sii socon doonaa beri maxaa diiradda la saaraya haddaad dadweynaha la wadaagno? dabcan qodobo kaloo dhowra ayaa qorsheysan oo beri maaragta laga doodi doonaa waxaana maaragta dareemeysaa cumro marka shirka qodobada maanta looga hadlaya qiimeysid muhiimadda shirkan uu lahaa maaragta bulshada soomaaliyeed oo
aad dareemayso maaragta miisaaniyadda iyo maaragta qiimaha uu ku fadhiyo iyo halka lagu qabtay marka loo eego shirkan martigeliso soo muqdisho lagu qabto islamarkaana martigeliso dowladda federaalka soomaaliya islamarkaana ay kasoo qayb galaan wakiilo ka socda ilaa 50 dowladood iyo sidoo kale shirkada caalami ah iyo weliba wakiilo ururada maaragta caalamiga ka socda dabcan maaragta guulan laga gaaray qodobadii maaragta ugu horeysay oo maanta laga dooday oo wakiiladu maaragta ama ururada caalamiga martida ka socotay ay aad u bogaadiyeen in dowladda federaalka soomaaliya ay horumar la taaban karo oo muuqda ay ka samaysay dhinacyada maanta laga hadlay haddii noqon lahayd dhinaca amniga kobaca dhaqaalaha siyaasadda loo dhan yahay cadaaladda iyo waxyaabaha la xiriira marka beri marka waxaa la filaya qodobo kaloo dhowr in laga doodo islamarkaana laga soo saaro warmurtiyeed loo dhan yahay oo kasoo baxa shirkan. aad baa umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa wariyaheena cabdulaahi maxamuud amiin qorshe oo si toos ah qadka telefoonka inoogu waramayay wuxuuna wariyaheenu ka mid ahaa tiim ka socda telefishinka qaranka soomaaliyeed oo ilaa saaka kala duwanaa halkaa ka dhaco ugu dambeeyay kii caawa ra-iisul wasaare xasan cali kheyre uu shir gudoominayay ilaa berito ayayna telefishinka qaranka soomaaliyeed tiimka ka socda idiin soo gudbin doonaan inta shirka madasha iskaashiga soomaaliya caalamka lasoo gabagabeynayo waraysigaasi wariyaheena cabdulaahi qorshe ayaana ugu dambeeyey daawadayaal barnaamijkeeni raadraac oo aad kala socoteen telefishinka qaranka soomaaliyeed xaruntiisa magaalada muqdisho barnaamijka oo caawa aanu kusoo qaadanay diiradana ku saarnay shirka madasha iskaashiga soomaaliya caalamka markii ugu horreysay laga qabtay magaalada caasimadda muqdisho khudbadihii laga jeediyey iyo arrimihii ugu muhiimsanaa ee looga hadlay ayaanu eegnay oo aanu dadweynaha u iftiiminayna intuu barnaamijka socday anigoo cumar xasan cali oo barnaamijka soo jeedinayay dhammaan asxaabtii igala qayb gashay iyo bahda farsamada annagoo isku duwantanay kulantay dambe daawadayaal waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.